ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo howlo amni oo waaweyn ka wada gobolada galbeedka ayaa qayb ka noqday raashin qaybinta la gaarsiinaya dadka ay abaaruhu saameeyeen howlgal ballaaran oo laga fuliyay deegaanada ku teedsan gobolka Awdal ee shaqooyinku ka jiraan ayaa raashin dhameystiran la gaarsiiyay waxaana arinta sharaxaya Xaashi Cabdilaahi Rooble gudoomiye ku-xigeenka ururka Daneeye. bismillah alxamdulillah salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. ilaahay waa mahadle Ramadaan Kariim dhammaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay Ramadaan Kariim tobankii dambe ku jirna Allah na aqbalo acmaasha waxa kale halkan aad uga mahadnaqaya dhammaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan nabadda habka nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka ay u joogan iyo dadkoodan khilaaf ka dhaxmaray isagoo nabadeynayeen ay u joogan gobolada galbeedka Soomaaliland. hadda maanta oo aan ku sugannahay maalintii lixaad degmada Garbadadar oo arintii raashin qaybinta aanu ka wadno arintaas oo iska kaashanaya xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan guddiga abaaraha heer qaran oo adiga u yahay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cali Cabdi isagana waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasaanadka ugu daro. saasi daraadeed anagu hadda maanta waxaanu wadnaa qaybintii kulleyna wuxuu qayb ka yahay dhisidda nabadda iyo xalinta khilaafaadka. waxaa kaloo mar labaad u mahadnaqaya ciidamada qaranka ee maantana raacaya halkii barkii hore keliga ayaanu socon jirnay maanta waxaana weheliyo na raacaya ciidamadii qaranka iyo araariyo oo garbada joogta ayaa noo raacaya eeriyada khilaafadu ka jiro. saas daraadeed u malayn maayo in wax dhibi jiraan laakiin haddana dee nabadii waa taas oo dee nabad baa naasan maalinle waxaan markaa laba dhinacba soo jeedinayaa waa ragga gushii waa nabad haddaanay nabadi jirin ilaahay baa qur-aanka sugay in amniga iyo iimaanka amnigaa badda horeeyo haddaan amni jirin dee salaadii masaajid la tegi kari maayo. saas daraadeed waxay saxaafadan TV qarankan aad baan ugu mahadnaqayaa. wayna soo gaadhay deeqdii ururka Daneeye uu noo soo diray madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxaan ka guddoonay waxaan kala wareegnay 100 nafar oo 100 qoys raashinkood intaas waa mahad ilaahay waan salaamayaa anigoo caaqilkii beesha damasha Maxamed Axmed Aaye waxaana soo gaadhay raashinka loogu talagalay 100 qoys oo inoo keentay ururka Daneeye ee guddiga abaaraha waana ka guddoonay wayna mahadsan yihiin. halkani waa tuulada la yiraahdo Hulka xilliga aan joognay aan hadlayno waxay soo gaadhay raashin deeqa oo ay soo bixisay hay'adda Daneeye 100 qoys buu ka kooban yahay raashinkaas.